access uma ilahan waxaysan access ugu lahayn so ninkaanu guri section 8 u degan yahay shaqadiisana waa waxay financial aidna uu qaataa iskuul buu aadaa oo adigu iskuulku aadaya maadna aadid baa ir galinku aadaya galin kale maadna ma aad ilmi hadda waa markaasay tiri ma aniga ninkayga qoray iga dhididaya marka waxaan tusay maalin baan waxaan ir inakeen waxaan u kaxeeyay nin xanuunsan oo Minnesota isbitaal weyn ku jira wiilkaasi aakhirkii wuu dhintay Allah u naxariisto wiilkaas markuu noolaa xaaskiisa wuxuu ku yiri go school waxbuu bartay xaaskiisana wuxuu ku yiri go school bay aaday waxbay soo baratay maalintay graduaysay xaflad buu u dhigay so wiilkii sagoo shaqo fiican haysta ba xanuun ku soo booday wuu xanuunsaday wiilkii waa dhintay isagoo xanuunsan marka ba waxaan ku yiri gabadhan inakeen waan kaxeeyay isbitaalkii baan geeyay markaan isbitaalkii tagnay baan waxaan ku yiri ninkan ma u jeedaa yaa ninkan ma u jeedaa gabadhii uu qabo waxbaruu yiri baa iri yaa gabadhiisa waxbaruu yiri marka maadaama uu waxbara yiri waxbay barata shahaadadeedu way soo qaadatay waxay baratayna way ku shaqaysataa caawa haddii tii ilaahay ninkan u timaado yaa ilmihiisa hooyadood yaa imbeesh dheer tijaab aadi maysaan ku iri صح gurina wuu oga tegay yaa oo guri bay lahaayeen ko gurigeedana way baxsan kartaayo cidna tuugsan maysaan ku iri marka adiga caawa haddii ilaahay tiisa ninkaaga u keeno ama usaan xanuunsado what are you gonna do maqlay ha maxay tiri maxaad samaynaysaa baan ku yiri haddii sidaan maanta ilaa kamana fiicna ninkaagu asaga adiguna kama fiicnid guarantee ma haysatid ninkaanu guarantee ma haysanin halkaan uu ka kici karaa ilaahay uu caafimaadin karaa uu dhiman karaa laakiin what you think yaan ku iri adigu maanta digriina ma haysatid section 8 baad degan tahay ninkiina waa kanaayo asagaa wax barbaranayay adigiina wax ma ad baran maxaad samayn lahay wallahi waa runtii waa inaan aadaa waxaad ku faaraysaa baan ku aroos baan aadaa iyo kanaan aadaa xoolaha aroos ku gadaysay lacagtaad ku gaday dunuucda waa lacag tuuga lagu keenay soo cunug baa ka qaata cunug baa ka waxaysaa halkaan dheykar ka qaata ninkii baa saan because ninkii inka ma lahan mataqaanaayeeto gurigii baa loo income idii ah lacag badan buu soo qaadaa wixii baad kala khabaynaysaa soo maaha wixii weeye lacagta dunuucda lagu gadaayo suuqa ordaya waa waxaas marka haddii runta beentaanu dhammaato runtu timaado yaa maantana aan beerkaaga beer kaa xiginin maxaad samaynaysaa gabar walbay waa ku khusaysaa waxaas aan ka hadlaayo gabar walbay way ku khusaysaa ninkaani hadduu xataa kuu roon yahay ma adigaa iskale uu kaa tegi karaa uu kaa dhiman karaa uu kaa bukoon karaa barwaaqadu waxba kaama dhinto dhibaato waxaa kugu ah aniga ooya aniga ma idila hadlaya anigoo nin ila noolayn ilmo kaliya koriyey baan ilmahaygoo wax baranayaan wax baran kari oo jaamacad soo qaadan kari markaan fiiriya dheerta jaamiyaa saacadan aadaysa ilmahaaga kaligay baan intaan guriga hoos ka xirtaa taa iyo taa ilmo i qoysaa why because xoogaygii baan dad wax ku barayay anigaa la igu dul noolaa maxay anigu waxba hooyaday bay oran jirtay ina milyoonay joog noor iskuul ku noqo noo orada iskuulkaaga dhigo noo orada iskuulka aad bay hooyaday oran jirtay gabar walba waxaan kugula dardaarmayaa timeka intaad maanta haysatid yaa one day one night Saturday ma maqla jirtan hees yaroo la qaado Saturdayda xataa ha qaata wallahi meelba biri kaaga soo baxaya gabar walba iyo wiil walba wax baro yaa dadka opportunity landigan inta fadhiya yaa markaad meelaha qaarkood tagtid baad yaabaysaa dad baa waxay ku luminayaan waqtigoodii inay mool fariistaan kulligoodna waa loo turjumayaa marka istaalada tagaan Soomaalida nimankeeda maaragta iyo naagahaba ha turjumaan baa ii timaada kan maxaa kuu qarsoon privacygaagi baa lagu ogyahay lifekaagi baa lagaa warqabaa ordo intaad qaadata ordo wax barta ordo waddan ka faa'iidaysta maba ay nacaayeenba haddaysan maaragtay loo inkamna waa degan yihiin welfarena waa cunaan farihiina waa ka caytamahayaan afkeena waxay ka cunhayaan xoola aysan shaqaysanin waxay jilicsan baa joq kasti iska jar la iskuma jecle waxaan idiin sheegaya anigu mar baan damca inaan hawada galo waddanku waa 3 level waa low iyo middle iyo high income way low income ka waa la biilaa qofka high income ka ana waa dadka tagaasi baan bixinayo waxaasaan bixinayo
taqaanaayo kaniisad baan caawinay oo masaajid baan wax siinay oo bay dhahaano taxi badan lagama qaado dadka middle income-ka abaa la cunaa dadka la baabiyey oo taxiga lagu cuno waa taxiga maagaan tagay businesska galay dukaanka lacag tukeen gurigihii sanad walba taqaanaayo waxaanoo lacaga bixi war adduunyo marka dad baa waxay noqonayaan mataqaanaa dif abgaraynaya markaasay dhahayaan wallahi tan loo income-kaaba dhaama daasbaadeenu hayga u gaari weydaa markay lowgii ka baxaan oy middlekii aadaan ilaa awal lowgii waxbaa lagu siin jirayo maaragtay waxbaa lagu tari jirayo oy xoogaa middle gaaraan oo kan soo bood oo kan soo bood oo kan keen oo taxigii keen oo intaas lacaga celi oo saan samee la dhaho ummad walba wuxuu oranayaa ya laa income-kaygaa la ii qaataa kuwan ya ifaanfaanani war african aadaya ayo business baan ka aas-aasaya international business trip waa odayaasha waa international business trip high level waa gaari karnaa high level yaa noqda mataqaanaa corporate kaa noqda dumar la-aan baan corporate ka dhigi doonaa waad ogaan doontaane oh yes dumala will be war yaa isku darsanaya haddii la helo 30 qof oo min $10,000 isku darsata ya oo ku shaqaysata so maxaa ka samayn lahaydeen wax weyn baa ka samayn lahaydeen absolutely waxa weeye idinkaa ku shaqaysan lahaa oo wada women ah oo nin idin soo dhex gelinin oo wax walbaba xisaabteeda iyo baad oo aan tuugo la soo gelinin berri baad bum kuwa waxaad noqon lahaydeen dhahda oo communitygaasaan wax siinaa masaajidkaanaan wax siinaa agoontaana foundation dadkaana صح you see foundation never and that inaan intaa dumarlaan soo facebook oo dhan idinka soo kacay oo dumarlaan soo gashaan inaan farax xunta taagtaan lagu caydaan ba no absolutely waa waxa la yaabay waa waxa la yaabay maya milyan waxa la yaabay waxa waaye waa saa sheegtay intaas meelaaba opportunity ah waaba anaga waaba kaa soo tagnay waa kaas oo ku dhaafnay waji buug inaas caaysiin iyo meelahaas isku raftiin iyo baalahaas ku markaas intay ka soo daarin because ayaga isku sheegay moogta waa mid ka sida mid oo loserka uu ku jiraa kulay ba hadda because asaga ma caaytamin wali uu og yahay uu yahay maxaa markuu dhahayo anaga niman waxa soo galina niman Somali professional oo gabdhahan rebellioska iyo groupkan ina adab la barday meeshay ka fakaraan low class waa levelka waxa ka wada meel geysanayo maalinta u samaysta geysto ma anagu xiradayda nagu soo ku baaraynaya actually group hadda uu suubsadaa waa suubsadaa waaba ku dhaafay moogta because maana wiifta inay gashaan groupkiisa nutrition iyo health mise something uu dhahay waaba ku dhaafay groupyaal kale hadduu kaas kusoo dhijin lahaa mar horaa la delete garayn lahaa ama la block garayn lahaa waxaa la tusinaa meeshan Dumaland waa education waay markaa aragtay faaraxinkii wadaad inka lagu dhaafayo groupka waa baritaan inaa fiiriso horta waxa caabudaysid horta fiirisu u yaalo waxa ka cabsoonaysa si MMS u sheegaysa bal fiiri levelka brainka uu leeyahay niman kale uu u baahan yahay cawinaad kale uu baahan kaligiis wala meel ma isku sheegi kara geesinimo intaasna wuxuu ka wada rebellious because wuxuu ka wada meel oo naaga ee hadlay because naagihii Soomaalidaas siday difaac low quality u noqdeen milyan waxay gaarteen mid oo xar maxaa kastuumaha iska soo dhaqin inuu levelkaas kugu dhaho markaas u qoqoslayaan ma faanta xaq ma fakarayso daya ani hadda group kale ku jiro oo ark waxaan ama loserka xaarka waaba kama tagila waxa dhila what is this shit kan ma faanta waxaan u raaynaga bax baba gaar because wadaadadii meesha jireen iyo kuwii meelaha ku jiray waa tii markii gabadhii kow u soo dartaa waxaan ku yiri xalayto na meesha waagi waa la iga tuuraa ay say tiri yaa ka tuuraysaan oo adigu qolmay ugu haysan lahayd maya waxa ka wada this is the problem value with a lot of thing waxa way sick maanta soo dhan laga hadlay kaadara naagahan waxayna ogeen malin inta ay difaacayaan luuqay ugu sheegayaan wax horaana loo soo sheega kawan faaraxinka ugu tagayaan luuqa waxa u sheegayaan faaraxinkna asaga sheekadiyo kulul ee bisal ee noo keena wuxuu u keenaa because inuu tusiyo Dumaland ma bahaysatii naagiina united ma fakt asaga kaasoo u suubina waa ogahay ma fahmino inuu tusiyo ayada nacasnimadeeda ma fakaraysa markay ninka la sheekaysanayso loserkaas faaraxinka isnacaabku u haya ayada Dumaland ama whatever ayada hayso you're the same waa gender ka tahay moogta ma fakarayso markaas intuu noo daal waa kana tani hebel Dumaland ay ku jiraan hadda ku jiraan dhageysanayaan ka war markaas tani waxa say sheegtay ma fahantay anaga there's a reason
ama mas hadday tahay baalaha kulligiina bannaankay soo saara ani I'll tell you why I do that ma ogtahay because kuwaa ma oga maxay Zahra u qarin mayna soo saarta the reason is Farax inkaa ii shaqaal waa Interpolki waa the Dumaland investigative unit horta aan ii sheega the top people oo ku ugu sareeya waa Farax iyo Joodari Farax horta number 1 ayagaaba ka hela wayba ka hela wayba they enjoy it Dumaland ay ku fiirsadaan naagahan loseriintay arkaan way noo sheegaan waxay dhahan tan waa sidaas meeshaasay niga caysay tan meeshaasay wax niga sheegtay how you think anaga time inaa hayno gus worshipperka u tagtid ula sheekaysatay informationka anaga noo keeno day in day out day in day out every day marka tia hadhow meesha soo galaysa isku faafaana even markay hadda suubinayaan game kan iyo maxaa dhaa religiousky whatever mugta waa taa sheegay lifeka waa taa ka hadle waa it's done I talked about it waa tii post ku dhahay waxaa la bloggaray weli waa lagu wadwaday because agenda meeshaan socoto mugta waa wadaad inka agendaga meesha ku jiro mugta yaad noo sheegay Farax inka agendaga noo soo dhiibay waa 2 iyo 3 loseriin ah oo qurmooyin ah oo ibliisa ku jiro oo dhahan sidaasaa suubinaynaa Dumaland waxaa suubinaynaa naagaha inaan soo kicino waxaa dhahaynaa kaas meeshaasaa ka geli karnaa because meel kale waa ka geli weyne dadkan mugta that's what they do malhin that's what revolution dadka ogooda we know that waxaan oo dhan we understand waa kaa saraynaa because kan aa caabudid waa garbage stupid idiot waa loser lowest than the lowest of the garbage ku jira anagaana soo xareysanay the same way adiga maana wiifti Xaliima Minin ku soo xareysanay because say wax loo barana hadda anaga kulligeen dadkeena dhan Dumaland elite nahay oo group kale nahay ma fahantay ku baran karna we already have a group I wish I'm a surprise I could have mocked that there is already Dumaland elite group or only the top the same time as waxa la furay maxaa Dumaland 2 years ee mareysa why because groupada elite-ka markay noqdaan meel kala la sii aada level jiro waa sida shaqooyinka si MMA sheegtay waa poor middle iyo high Dumaland level kaas leedahay low level middle level and the high level hadda waxa adiga ku jirtiin figuring out who is who iyo kee aaday the high level kee aada wali waxa waa imtixaankii testooyinkii lagu wada jirahay it's always a test hadda umalaysiin inay test ahayn then you're in the wrong group sheeka baraley iyo calal ma ku jirto groupkana as day 1 victim ka loo furay groupkan waxa loo furay voice for the voiceless meel ay sanctuary ku noqdaan sidii Viola watay groupka stored house la dhaha that's the dream is eventually vision ka MMS set vision ka Dumaland it's eventually to have a sanctuary place for the victims meel ay imaan karaan meel ay community center ay leeyihiin real rehabilitation real counselor or professional تختارين or expert مار لحد all those things measures why the go through نقطة dadka suubin waa dadka action ka waay not dad ala not that kale ku mashquul not that emotional not that gets triggered my friend because that's something internally in a qof walba iska soo shaqeeyo everybody has to do that wata anaga sheegay MMSna has done it life even ni suubis way ni sheegtay waxaan oo dhan anaga sheegay MMS qofkii follow garay from day 1 way ka hadash maxay u imaadeen MMS maxay ni hadash why is she saying that ina soo baxday why wax walba u suubis everything that MMS did is for a reason through it reason kama fahantay do you understand ay ma la socotin markay ni hadlayso jacayl and she has deep love Million has the deepest love for dumarka deepest love for her people ma fahant waa qof ku jecel runta ku sheeg qof ku jecel ku canaananay qof ku necab oo enemigaaga intuu ku qoslo hag ku siina intuu ku qoslo oo hag ku siina qof ku necab enemigaaga aduu been waxa rabtu oo ka dhageysan ma fahant hadii garbage kaas intuu ka dhageyso waxa ma ku sheega that's not a true friend that's not qof ku jecel ha umaleen qof ku jecel inuu yahay qofka ku jecel runtu ku sheega runtana xanuun waay truth sometimes is hurtful it's very hurtful it's not easy laakiin runta la isku sheega MMSna runtii ku sheeg reality ma wax beenay ka hadashay she never spoke anything of any lie in fact Soomaalida wax walba ka like day in day out lie lagu wada jira meeqadada been laga sheeg dadkaasna waxa ku dhaha hadii adiga been laga sheega ogtahay you spoke the truth that is enough because runta always way soo baxda
mark my word qofkii truth ku dhaqmo in their life wax ka qaldamay iyo wax ka jiray ma leh guarantee so just follow that in Dumaland anaga waxaan rabnaa MMS too much time maribina ku u qaado safar salama be safe. Thank you, Mama. You know, we're gonna definitely miss you, but you're gonna keep us in touch. Hadii celebration weyn, let us know. Meeshaan inta ka dance gareynayna anaga ba in Dumaland, meel walba all around the world. Ma fahantay reer qorax joog queenkeena soo dhaweeye. Yeah. Internet way leedahay magaaladu meelo badan baa internet ya leh. Masha waan idin soo gal waan fiirinayaa saas ma idinkaga maaragtay maqnaanayo waa idinla soo xiriirayaa waa idinla soo hadlayaa whatsapp baa iigu jira whatsappkaygu waa kaas aan hawal haystay baa whatsapp ii ahaanaya meelshii aan maraayo iyo wixii informationkayga xataa haddaan idinka dhan bis aan idinla soo intaan gabdhahan la xiriiro sida dhowrka gabdhoodan aadka oola xiriiro waan la soo xiriiri doonaa iyaga akhbaarteyda idiin soo gudbin doona waddanku waa dheer yahay safarku waa dheer yahay ilaahay subxaana watacaala nabad ha nagu geeyo qofkii dhoofay baa garanaya safarka africa easy ma ahan aad buu u fog yahay africa waa fog tahay waddanka mataqaanaayeeto meel fog baynu joognaa dadka yurub joogaa naga fiican bikoo safarkaa u sahlan soo annagu intaasoo saac sii soconaan 8 saacan oo sii socdaad waxaad tegaysaa ingiriiska tegaysaa waxaad tegaysaa amsterdam ama ingiriiska meelahaas lasii mara aad tegaysaa markaas kabacdi baad haddana intii oo kale sii soconaysaa marka waxaasoo dhanna waxaa keenaya safarka waa safar aad u dheer laakiin qofkii ilaahay nabadgeliyo waxba ma aha waa asaga kuu khafiifinaya ilaahayga weyne waaxidka ilaahay safarkaa noo khafiifiyo idinkana barwaaqiyo khayr baan idinka tegayaa masaafirka waa laga ducaystaa baa la yiri markaa masaafirka noqdo oo aan gurigayga ka baxo insha allah biidni illaahi alkariim markaasaan duco khaasa idiin soo ducaynayaa oon ilaaha idiin baryayaa masaafirka ah gabadha umusha ah qofka dulmanaha ah ilaahay ducadooda wuu aqbalaa marka ilaahay kuwii ducadooda aqbalaha naga dhigo idinkana abaalkiina ma gudi karo inta aa wax xumaynaysana caqli xumaa u geynaysa kolley qof caqli leh wax ma xumeeyo qof haddaad aragtaan qof xumaynaya waa qof aan caqli ku filan aan lahayn marka intiina caqliga lehna caqliga allaha idiin saa'idiyo intiina wax ka dhiman yihiinna ilaahay subxaanahu watacaala caqli badan ha idin siiyo caqligiina ha idii bahalkiyeeyo meelaan ku kala tegayna malahan